xaflad aad loo soo agaasimay laguna xusayay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo aasay xisbiga midnimo qaran ayaa waxaa dalka Suudaan ku qabtay faraca xisbiga midnimo qaran uu ku leeyahay wadanka Suudaan waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Khartoum oo isugu jira jaaliyada aqoon-yahanada suugaanleyda iyo midowga ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan waxaana furitaankii xafladda lagu xusayay sanad guuradii koobaad ee xisbiga midnimo qaran ku soo dhaweeyay dhammaan ka soo qaybgalayaashii Axmed Qaasim Axmed Saahid oo isagu ahaa agaasinka guud ee xafladda gaaxigu ahaydo guurtidan la dhowre hoogdoomo watan waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo hadayna la joogaan waxaan filayaa inaan la joogaan safaaradda waddanka Soomaaliyeed oo inoo ku sareysa haddaan nahay ardayda iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Suudaan itixaadka ardayda Soomaaliyeed sidoo kale aad baan u soo dhaweynaynaa xubnihiisii kala duwanaa dhammaantood inuu la jooga ra'iiska Abraham ugu sareeyaan dhammaantiin soo dhawaada ahzaabta siyaasadda waddanka Soomaaliya sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa xafladda xuska sanad jirsiga midnimo qaran ayaa iyaguna ka hadlay goobta qaabisay xisbiga sanad guuradiisii iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay ama dumar ha ahaadeen ama rag ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen iyo ururada iyo kulli ma badinayo laakiin waxaan jeclahay inaan ishaarooyin aan bixiyo waxa weeye carabtu waxay tiraahdaa almusiibatu idaa cammat khaffat waxaad ogtihiin berigii hore wax walba waxaa la dhihi jiray Soomaali baad noqonaysaan ciddii hadashaba xataa allah u naxariistay Yaasir Carafaat yaa wuxuu yidhi haddaad heshiin weydaan Soomaali baad noqonaysaan oo waddankiisu yuhuud haysto innaga waxaa muuqata ugu dambeyn waxaa soo xiray xafladda lagu xusayay sanad jirsiga xisbiga midnimo qaran xogayaha xisbiga ee fariiciisa Suudaan Xamza Maxamuud Jimcaale waxaana ka hadlay muhiimadda ay bulshada u leedahay midnimada iyo sida ay Soomaalida oo idil ugu baahan tahay in ay midnimo gaarto istaagto ayay ahayd waxaan filayaa dhaawac jira midnimada ka jira qarannimada ka jirta ayuu xisbiga midnimo qaran u istaagay inuu daaweeyo oo arkaysaan Suudaan ka jirta Soomaaliya ka jirta xisbiga midnimo qaran 26 February 2014 ayaa Muqdisho looga dhawaaqay sida ka muuqata magaca waxaan u maleynayaa waxa isku waafaqsanahay oo midkeen uusan diidaneen in ay nahayso midnimo la'aan ma beebadaas qarankiina uu burbursan yahay doctorka hadda ka dhawaajinay iyo waxyaalo kale la mid ah qaarkeen jawaasi kale ay wataan muwaadana cusub ay soo baxday marka xisbiga 2014 waxaa la yiri maadaama Soomaali horumarayso hore u socoto xisbi siyaasadeed waa in la helaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii ayaa mahadiyeen sida heerka sare leh ay u soo ilaatay sanad guuradii koobaad ee xisbiga midnimo qaran oo ka dhacday caasimadda waddanka Suudaan ee Khartoum Maxamed Ciise Koona telefishinka Kalsan TV Khartoum Suudaan